وانا imaado muqdisho book fair waa sanadkii labaad sanadka hore maana imaan because book ma qorin sanadkaana bookayga soo baxay 3 bilood ka hor bookayga waxa la yiraahdaa the societal state in Somalia the rise and fall of the Siad Barre regime of Somalia waxa uu yahay qarankii isqorgooyay soo bixi iyo dhaxalkii xukunkii Maxamed Siad Barre marka 69 farxad weyn ay tahay iyo waxaan ku arwaxsanayo in muqdisho aan ku dhashay ku koray yaa walaadii carray aad soo noqday anoo inaan wax ku soo contribute gareeyo wax ku kordhiyo qiimo weyn ay tahay runtii farxad gooni ah taasuna qalbigayga ay taabata maanta say dadku ii dhageystay markaan cilmi baaristayda la qaybsaday waxaad cadaa buugta soo bandhiga ayaad ka mid ahayd oo dadku aad ku xiiseynayeen inay maruuna sigoo hadlaya ama buugan ay qaataan meeslada buuga wax badan uu ka duwan yahay marka loo eego buugta kale ee halkan lagu soo bandhigay inaan meesha kaga faanaan diiday publicly laakiin buug waa buug kaliya academic yaala buug feerka oo yani cilmi ah buugta dad fiiriso waxay u badan yihiin buug fiction ya novel iyo buug laga qoray u badan yihiin marka waa buug cilmi oo darsaya wuxuu qiimeynayaa theorieska Afrika dib u fiiriyo conceptska qaabka indhaha lagu fiiriyo khilaafka Afrika qaabka duwan inaan eegno wadankuna wuxuu ku jira mucjiso oo waxa la leeyahay banya adduunyada cilmiga lahayd oo dhan wadan burburay oo 25 sano baaba ku jira oo ka bixin Liberia iyo horay uga sii baxeen 6 sano baa ku jireen Congo waxay jajabtaba 7 sano baxday Jad waa baxday Côte d'Ivoire meel badan 25 sano wadan qarankoodii hal uu noqon laayay halkana laga hayaa annagina mas'uuliyadana saaran mutacallim Soomaaliyeed oo darsay waxan ya siyaasadda Afrika sociologically dhinac walba ay dhaqaaleeyda xataa inuu ku fiiriyo indha kale oo isku dayo inuu darso markii mushkilad iyo masiibo markii la darso ayaa halkeedii la helaa doodu saasay markii kugu horeeyay waa buugan aad soo aqorto sidee kugu suurta gashay in buug aad diyaariso oo ka mid noqoto dadka qorayaasha Soomaaliyeed hal sano fadhiyay oo waxba qaban oo ka shaqeeyay buuga qoristiisii halkaas sanana waxay ahayd intaan apply gareeyay PhD ayaan heli waayay scholarship marka sanadkaas intaan fadhin lahaa waxa ii soo baxday wadanka tago macallin noqo la master baan haystay marka ama buug qor marka wadankina maadaama uu wali xaalad adag ku jiray waxay ahayd 2013 dhamaadkeedii ilaa 14 waxaan isri bal qol isku soo xiro wax qor marka hatta weekendiga iyo marka dadku aado fasaxyo sabtiga axadda iyo ma aadi jirnaa anigu bishii axad inaan baxaa laga yaabi jiray haddaan library tagay ama ururinay marka halkaas sanaan ku qoray buuga marka ujeedad dhibaatooyinkii aad kala kulanto buugga qoristiisa iyo waxyaabihii aad ka barato isdhigi kartaa hadda buug kale waad ku dhiiran kartaa inoo sheeg dhibaatooyinka waxa ugu waaweyn daal tabardarro waxa ugu weyn faqri oo dhaqaale ma jiro qofka markuu wax qorayo wuxuu u baahan yahay grants Soomaaliya daraasadeedana lacag la isku ma siiyo dhibka weyn oo naga haystaba waa taas haddii maanta aan darsi lahaa Senegal oo Tanzania oo Rwanda oo yidhaaheen daris lacagan heli lahaa mugtahay waxa lagu siin lahaa maanta inaan dadku u sheego waa fiicnay dhaqaale la siin lahaa aan ku darso laakiin Soomaaliya wadan lagu gaaladina ay ku daashay qaramada midoobay wixii darsi rabay inay xaliyaan ya African Union dib ka haysto ayay noqotay marka gaaladu kuma dhiibayaan lacag iyo grants cilmi baaristeeda oo waxay leeyihiin wadankan wadan xaaladiisa complex ay u arkaan oo xaalad madax laga jaray oo si loo fahmi jirin annagana ma arkaan inaan xataa fahamsiin karno marka dhibka ugu weyn oo qabsaday waxay inaan aniga isdabaray dhaqaale ahaan oo jeebkaygii ya wixii aan heli karday iyo waalidkay wixii caawin karday walaaladay inay idabareen oo aan dhaqaale u helin runtina inaan umadayda u sheego way fiicnay haddaan darsi lahaa Tanzania inaan lacag ku heli lahaa laakiin maxaan u faa'iideeyay umadii haddaan noqdo scholar ku takhasusay Congo umadayda cilmi baaris aan maanta la qaybsado oo igu dhageystaan ma helahayn inay taas ay iga muhiimsanayd inay sharfeen iyo ixtiraameen cilmigaygu macna u sameeyay ayaga intaas qalbigaygu ku yahay wax hanti igu dhex jirta inay tahay waxyaabii aad ka barato isdhigi karto bulshada waa ay ka faa'iideen oo adigana marka la ku dhiiran kartaa inaad buug qorto maxay ahayd waagii aan bilaabayay qorista buugga waxaan ahaa pessimistic dadka qoostaan ku jiray oo Soomaali ka qoostay inaan la xalin karin dhibaatadeeda wanaag dambe oo ka soo socdana lahayn maanta markaan daraasad ku jiray muddo dheer ya waxa ii soo baxday inaan ahay optimistic rajo inaan ka leeyahay haddii Soomaaliya la helo hoggaan wanaagsan haddii la helo hoggaankana la sadgareeyo oo uu noqdo hoggaan lagu soo xulay karti hufnaan aqoon tacliin cilmi vision oo noqon hoggaan laaluush ku iibsada xukunka wadanka 4 sano dad cusub inay la doorto ya meel loo dhaqaajinayo ma jiro waxaan ku jiraynaa Soomaali waxay ku maamahdaa jugjug meeshaada joog ma dhaafayna meeshaas aan ku jirno waayo fakar ma u baahna aqli badan iyo cilmi badan inaan faano 25 sano wadanka burbursan waxaan la mid noqonay fuusto maran oo aan biyo ka buuxinin biyuuna daadanayaan
waa buuxinaynaa waxaan isku dayaynaa inaan buuxino taasna dee waa waxay la mid tahay ila eg tahay wixii filosofarka weynaa oo jarmalka ahaa albert einstein markuu macnaynayo waali wuxuu ku macneeyey waalidu waa qof isku dayaya inuu isbeddel abuuro oo isbeddel keeno laakiin maanta oo dhan hal wuxuu ku celcelinayaa bal wixii yaa ku soo laalaabanay wuxuuna rajaynayaa in wax iska beddelaan laakiin ma beddelmayo aniga marka casharkan ka barto waxay tahay soomaaliya in xal laga gaari karo waddankii midnimadiisa iyo wadajirkiisa dee inaan dib u soo celin karno waddanka ma midaysnaadee mar kale ma ku dhiiranay inaad buug kala qorto oo qorshe ma kuugu jiraa maxamed ها sanadka soo socda waxaa soo bixi doona kan mid ku xiriirsan oo kan laga gooyay waa weynaa kan marka mid laga jaraa jiro oo wuxuu ku saabsan yahay kan waa state collapse qaran barburay kaas waa qaran fashalay ya qaran burburay muxuu burburaa muxuu uga baxaa burbur kaasna dee waa qaran fashalay qaranku intuusan burbur gaarin wuxuu maraa stage la yidhaha state failure wax yar oo dhutiyaa lugaha soo ka go'an iyo gacmaha marka qarankaa fashalan ayaan soo wadaa waxaa la yidhahdaa the cannibalization of the state in africa qarankii oo dad cuna qaaradda africa subtitlekana waa dee colonocide iyo colaadaha waxaan qabaa'ilka la isku dilayo macnuhu wuxuu yahay dee oon ka wado qaranku waa quudiyaha kan qatan kan baahan qaranka hadduusan dadka quudinayn dee qaran maaha dee waa predatory waa yaxaas marka dee hooyada maanta faqriga ee baahanee bannaanka afgooya joogta iyo duurka qarankii sugaya in la quudiyo marka hadduu qaranka quudin lahaa ayada wax ka dhex raadiyo dee kaasu qaran maaha ummaddii waxay doonaysaa inuu kaasu baaba'o oo qaran la'aan la noqdo dee waa inaan ay fahmaan dadku la macneeyo ugu dambeyn ciwaanada uu ka kooban yahay ee buuggan adoo soo koobaya wallaahi ciwaanadiisa waxay weeye 3 qaybood ya qaybta koobaad oo ka kooban 2 jabtar marka taas waxay sharxaysaa dee raadadkii iyo abtirsiga dhibaatada root xididka geedka in laga daba tago ya khilaafkiisa ta kan labaadna waxa weeye dee qaab dhismeedka qarannimo qarankeena soo noogu qaabaysnaa ya marba marxalada isbedelaysa moog 69 dimuqraadiyad 69 waxaan galnay ya 91 wuxuu ahaa military regime wixii ka dambeeyay waxaan ku jirnay state collapse clan versus clan marka dee waxaan kaloo ka hadlayaa dee qaybta saddexaad waa 5 qaybood qaybta saddexaad dhaqaalihii political economy-ga waddanka dagaalkii 77 iyo colaadda noo geystay qaybta dambana dee waxay ka hadlaysaa dee xaaladihii khatarta waddanku gala dee meeshaan jecel suufi culimadii lillahi iyo laynta culimadii dhibaatadii iyo markuu dambayso break waddanka cadcad u kala gogo'ay dhibaatadaas weyn aan galnay isaan uga bixi lahayn access iftin inuu ku wareysata sidee u aragtaa aad baan ugu faraxsanahay iftin waxaan u jeedaa balaag soo madaxdu ka mid yahay Soomaa de balaag anoo yaro 14 jir dadkana gacan qabto ahaa markaan qoraaga noqonay oo ayaamaan kala shaqayn jiray aadan ugu farxay maanta inaan inta ku arko marka inaan isla soo shaqayno waa moogtahay muddo dheer ka hor marka waan ku faraxsanahay dadaalka halka ka wada waddanka maanta markaan cilmi baaris sameeyay 10 bilood oo cilmi baaris 5 sanadka hore iyo hadda aan 4 wado ilaa 5 wadi doon waxaan u kala saaray horumarka waddanka socdo cilmi ahaan 2 qayb midna state midna society bulshada dadaalkay dadaalaysa ka mitiin adinka telefishinada حوالة سيستم telecommunications يا جامعة سكولة برايفت كأ شركات كده insurance وحاصلنا المقارنة أو سميدتك وما يبولش أصلا مثلا أو قرن كمسؤولية صارنا وحنا سويدين إنه هلقا نكون إحنا قرن كهدي اللي هي صيحة بيا هرمر أفريقيا على تكسنا صاد أفريقيا نقول لهم أدبنا نكون فرح سنة هاي ماشى كوضع تابر كوضع دلال كوضع ترينينج كشغاليه نوضع يا أغرس كهلا وضع سمايستا department of research إنين سمايستا علم بارستا يا وركا editing iska ilaaliya tafaftirka wax qurux badan oo macaan u daaya umada qaasatan isku daya dadka fikirkooda inaad dhistiin mutacallimiinta waaweyn soo azuuma culamaa u diinka azuuma gabyaaga ya suugaanyahanka azuuma way xigmadii umada wahaya waa yeelka azuuma fanka azuuma sportiga kuwa dadka mideena kuwaas weey sportiga de wax wixii dhalinyarada hagi lahaa oo ku hagi lahaa inaysan isqarxin inaysan nolosha ka quusan kubadda cagta iyo basketball waxay noqotaba umada wuxuu galiyaa rajo iyo diilo aad baan idinku faraxsanahay halka ka wada xoojiya